daawadayaal waa cayuuni qurux oo runtii muuqaal aan inaba caadi ahayn imika social media lagu arkay. haddaba daawadayaal intayna nugda galin sababta muuqaalkan ay isaga soo duubtay iyo sirta ka dambaysa, fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar, sidoo kale gambaleelka furo si ay ku soo gaadhaan muuqaalada xisaab badan aan halkan soo galino. muuqaalkan like saar. haddaba daawadayaal waxa saacada ka horuun dadka Soomaaliyeed ay arkaan muuqaal ay iska soo duubtay gabadha TikTok-ta ka caanka ee cayuuni qurux. haddaba muuqaalkan oo ay gabadhan jiifto isla markaasina ay ismasaajeynayso ayaa lagu arkay baraha bulshada iyo gaar ahaan social media. haddaba muuqaalkan ugu horeyntii waxa lagu arkay Facebook isla markaasina qof walba arkaa u yaabay. haddaba daawadayaal muddooyinkan dambe waxa dhaqanka Soomaalida ku soo batay dhaqamo xunxun oo runtii aan inaba caadi ahayn, iyagoo gabdhaheeni Soomaaliyeed iyagoo hurda iska soo duubaya muuqaalo aan sax ahayn isla markaasina aan indhaha u wanaagsaneyn. haddaba gabadhan oo aynu wada naqaano isla markaasina magaceeda la yiraahdo cayuuni qurux oo ah gabdhaha ugu qurxoon Soomaalida gaar ahaan kuwada TikTok-ta isticmaala, waana mid kamid ah gabdhaha loogu jecel yahay TikTok. haddaba saacado ka hor ayaa social media waxa qabsaday muuqaalkan yar gaar ahaan barta Facebook. muuqaalkan oo ay iska soo duubtay isla markaasina ay taabanayso naaskeeda bidix. haddaba daawadayaal runtii waa wax aad looga xumaado inay gabadh Soomaaliyeed muuqaal noocan oo kale iska soo duubto. haddaba daawadayaal lama garan karo sababta ay muuqaalkan iskaga soo duubtay. daawadayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa warbixintan gaaban ee aan kaga hadlayay gabadhan Soomaaliyeed dhaqankan xun ee ay ku kacday. haddaba intaaynan ka bixin muuqaalka fadlan subscribe saar, sidoo kale gambaleelka furo si ay ku soo gaadhaan muuqaalada xisaab badan aan halkan soo galino. waanad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalka.